horay waxaanu ballan qaadnay inay magaalada ka socdaan howlgalka la dagaalanka burcadda hubeysan ee dadka dhacda wali waxa socda howlgalkii la dagaalanka burcadda hubeysan ee dadka dhacaysa halkana maanta waxaan idin kula wadaagi doonaa howlgalladii ciidanka booliisku ay sameeyeen saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay ee ku saabsan hirgelinta howlgalka la dagaalanka burcaddaas hubeysan sidaas si la eg waxa kala toon idin wadaagi doonaa kiiskii wiilkii yaraa Muscab ee jirdilka oo adeerkii ugu geystay degmada Daynile taariikhdu markay ahayd 4tii bishii July 2021 waxaa la soo qabtay 3 nin oo burcad ah oo ku eedeysan burcadnimo kuwaas oo fal burcad hubeysan ka fulinaya degmada Kaaraan burcadaas saddexda ah ama dadkaas ku eedeysan burcadnimada ee saddexda ah waxaa lagu soo qabtay degmada Kaaraan iyagoo dhacaya moobeelo iyo dahab isla markaana fragrant offices gacanta kula jira ama fragrance delegate ah oo markii gacanta kula jira falka iyagoo sameynaya gacanta lagu soo dhigo howlgal ciidanku ay sameeyeen sidaas la eg maantay 5tii bishii July 2021 saas oo kaleeto waxaa la soo qabtay hal eedeysane oo isaguna basoolad nooca la yiraahdo Belgium oo caag ah dadku dhacaya degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir taas oo cadeynaysa in burcaddu ay isticmaalaan xeelado iyo taba kala duwan si ay dadka ugu dhacaan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir iyadana waxaa lagu soo qabtay hal eedeysane oo isna ku eedeysan inuu dhacayay dad muwaadiniin shacab ah inuu soo dhacay muwaadiniin shacab ah oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah dabagal iyo raacdayn ciidanku ay ku hayeen eedeysanahaas ayaa gacanta lagu soo dhigay bacdama ay soo ashtakoodeen dad sheegtay inuu hore u dhacay eedeysanahaas goobjoogna u ahaayeen dhici oo iyagu u geystay marka eedeysanahaas gacanta lagu soo dhigay isagana baaristiisa socota marka ay ku cadaato ayaan saas oo kale to saxaafadda la soo wadaagi doonaa oo ku cadayn doonaa garsoorka xukunka markay ku ridaan kadib maxaa yeelay iyada oo maxkamadda awood u leh ama garsoorku uusan qofka eedeysanaha u aqoonsan dambiile lama dhihi karo inuu dambiile yahay sidaas daraadeed dhammaantood waa eedeysanayaal marka kiisasku ay ku cadaadaan ayay noqon doonaan dambiilayaal oo maxkamaddu ay xukunto halkaas waxaan uga baxaynaa kiisasii burcadda hubeysan ahaa ee gacanta lagu soo dhigo howlgallada ciidanka ay sameeyeen awgiis markanna waxaan rabaa inaan idinla wadaago wiilkii yaraa ee Muscab 3dii bishii July 2021 ayaa wiil yar oo saqiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Muscab Maxamed Xasan ina hooyo Naciimo Abshir Dilix ee da'diisana ay ahayd 4 jir ayaa 3dii bishii July 2021 abaara 3dii ama 9kii galabnimo waxaa si arxan darro ah u dilay adeerkii hooyadii qabay oo isna lagu magacaabi jiray Xasan Kaafi Cabdi Jaamac ina hooyo Maryan Xiiray cilmi 25 jir ah degan degmada Daynile ee gobolka Banaadir marxuumkaas yar oo saqiirka ahaa Muscab oo dilay adeerkii hooyadii qabay ayaa waxa jirkiisa ku yaalay sida aad ka aragteen sawirada la soo galiyay baraha bulshada jirdilo iyo ul loo isticmaalo fiilo oo si saayid jirkiisa ugu taalay marka baarista oo kiiska oo waliba meel gabagaba maraysa ilaa hadda waxaa lagu ogaaday in marxuumkaas yarka saqiirka ah uu u dhintay naqas ku dhagay bacdama jirdil loo geystay ushaas ay ku dhacday iyadana baaristeedu way socotaa wixii ka soo baxa saas oo kale waa idin la wadaagi doonaa hadii Ilaahay uu yiraahdo waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo howlgalkaas burcadda hubeysan ah ee lagu dagaalamayo burcad dadka dhacda wuxuu ka socdaa guud ahaan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ujeedaduna waxay tahay in aan kula dagaalano burcadaas banaysatay dhiiga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay qofka burcadda ee u qasday inuu qof muwaadin oo mobile aan waxba joogin ka qaato waxay ku tusinaysaa halkaas waxa ka dareemi kartaa hadii qofka muwaadinka uu isku dayo inuu diido in qofka burcadda uu dilayo marka waxba ma dhaamaan falalka kale oo argagixisadu ay dadka dhiigooda ku banaysatay burcadda hubeysan waxaan ula dagaalamaynaa sidaan argagixisada ula dagaalano maxaa yeelay waxay banaysteen dhiiga iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed sida argagixisadu hore u banaysatay marka arrimahaas howlgalkaas waa socdaan shacabkeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay howlgalladii ay naga caawin jireen qaybna ka ahaayeen garabsiinta ciidamada ammaanka iyo ciidamada difaaca ay qayb ka noqdaan sidii hore noogu caawin jireen ay noogu caawiyaan isla markaana xogahana la wadaago hore waxaan dhowr jeer u sheegnay in 991 uu yahay lambarka gaaban ee lagala soo xiriiri karo ciidanka booliiska Soomaaliyeed fadlan muwaadin qasab maaha inaan adiga lagu dhicin hadii aad aragto wax ku tuhun geliya oo kula ekaada inay amniga qalqal ku yihiin ama lid ku yihiin si gaaban ula xiriir ciidanka booliiska Soomaaliyeed taleefanka 991 kaas ayaa noo saamaxaya in isla markiiba howlgalka lagu soo qabtay howlgalka ka dhacay degmada Kaaraan oo eedeysanaha lagu raajoogo lagu soo qabtay waxa lagu guuleystay in la soo qabto wicitaan qofkii muwaadinka ah uu soo marsiiyay 991 hal ayaa sabab u noqday in eedeysanaha gacanta lagu soo dhigay kiisaskaasna waa socon doonaan ilaa aan ka cirib tirno burcadaas hubeysan ee gobolka ka kacday waa socon doonaan shacabka hore nooga caawiyo qaybna ka ah waa uga mahad celinaynaa
sidaan hore u sheegnay qof walba ee moobil ka maqan yahay ee aaminsan in burcadkii la qabtay moobilkiisa uu gacan ugu jiro moobilada iyo hantida aan ka qabanay burcadaas waxaan geyn doonaa oo hubka isticmaalayeen ku jiraan oo dahabkii dhaceen ku jiraan oo moobiladaas ku jiraan garsoorka la geyn doonaa marka ay maxkamaddu xukun ku soo rido maxkamadda awooddu xukun ku rido waxaa dib loogu soo celin doonaa barti markii hore laga soo qabtay si muwaadinkii diiwaan geliyey oo dhacdaas diiwaan gashtay oo hantidiisa dib u helo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.